haddii aad soo celi weyso koobkii aad amaahato waxaa markaasi bixin doontaa lacag markaasi ganaaxa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة إيه سويدن إيه مانتا وموقالكي ugu horeeyay aan soo duubo sanadkan ee 2024 ee mardhow inoo bilowday. isla markaasina waxaan rabaa inaan kugu soo gudbiyo dhowr sharci oo markaasi ka hirgalay wadankan Sweden oo aadan adiga ogeyn. si aad hore u aragteen waxaan haystaa koobkan aad u jeedaan wuxuu ka mid yahay sharciyada 2024 ee wadankan Sweden dabcan laga hirgeliyay. marka kule laga hirgeliyay koobkan maxay tahay marka? koobkan sida ujeedin waa one time use koobka loo yaqaano oo inta badan ma aragtay qofka markuu isticmaalo iska tuuro. sanadkan 2024 wadanka Sweden waxaa markaasi laga hirgeliyay mashruuc socon doono ilaa 2029 kaas oo lagu yareyn doono isticmaalka koobabkan sidoo kale weelasha lagu shubto cuntooyinka oo markaasi take away sida u taqaanaan waa la yareyn doonaa. isla markaasina waxaa la keeni doonaa koobab sidan oo kale oo aad maqaayadaha ka qaadan doontaan isla markaasina aad amaahan doontaan. waxaa marka lagu leeyahay koobabkan waxa waaye waa amaahanaysaa horaad u qaadanaysaa sidoo kale markaad amaahato sida buugaagta oo kale waxaa laga rabaa inaad dib u soo celiso. Och skulle man inte återlämna sin mugg så kommer det bli en avgift helt enkelt för gästen. haddii aad soo celi weyso koobkii aad amaahato waxaa markaasi bixin doontaa lacag markaasi ganaaxa. sharcigan waa sharci markaasi hadda la ansixiyay isla markaasina socod doono ilaa iyo sanadka 2026 kaas oo lagu yareyn doono koobab markaasi inta badan halka mar in la isticmaalo dibna loo tuuro iyo sidoo kalena maaragtay weelasha cuntada take away lagu qaatay cuntooyinka. sharciyadaasi wuxuu ka mid ahaa sharciyada markaasi hirgalay ee wadankan Sweden ee sanadkan oo inoo bilowda hadda ee 2024. sidoo kale sharciyada markaasi cusub ee hirgalay sanadkan waxaa ka mid ah dadka markaasi shaqo bixiyaasha ama shirkadaha waaweyn leh ee shaqaaleysiya hadii jeer dhalinyarada gaar ahaan kuwa da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 10 sano ee markaasi ku noqon doonto inay shaqaaleysiiyaan markaasi qaali ayna u baahan yihiin inay ka bixiyaan lacag ka badan lacagihii hore ee laga bixin jiray dhalinyarada marka ay da'daasi jiraan. sida awgeedna marka waxay noqon doontaa lacagaha uu shaqo bixiyaha bixin doono si uu qofkan uu shaqo u siiyo ama uu shaqaaleysiiyo ay noqon doonto mid aad loo kordhiyay. waxay ka mid ahayd sharciyada markaasi sanadkan hirgalay. sidoo kale sharciyada markaasi isbeddelka lagu sameeyay sanadkan waxaa ka mid ah Det har blivit billigare att tanka eftersom regeringen sänkt skatten på drivmedel och reduktionsplikten. sida aad la socotaan in muddaha waxaa markaasi qaali ah wadankan Sweden shidaalka gaar ahaan kuwa markaasi loo isticmaalo gawaarida iyadoo markaan hadda uu markaasi yahay mid raqiis ah oona u dhaxeeyo farq weyn marka loo fiiriyo meesha uu ka yimid ama marka qaaliga uu ahaa awgeed. gaar ahaan waxaa markaasi isbeddel lagu sameeyay shidaalka markaasi benziinka iyo waliba dieselka oo markaasi in muddo ah aad qaali u ahaa. marka iyadana isha ku hay oo waxa weeye isbeddel wanaagsan ayaa lagu sameeyay oo sidii hore qaali uma ahan. sidoo kale sharciyada markaasi cusub ee sanadkan markaasi hirgala waxaa ka mid ah gaar ahaan oo la quseeyo ardayda markaasi ku guda jiro waxbarashada gaar ahaan loo yaqaano CSN-ta gaar ahaan lacagaha markaasi waxbarashada lagu qaato iyo waliba kuwa qaata deemanka oo iyadana sanadkan aad loo kordhiyay iyadoo markaasi loogu talagalay ardayda markaasi waxbarashada ku guda jiro ama ay xaq u leeyihiin inta ay waxbaranayaan inay qaataan lacagtaasi markaasi bidraga ama markaasi loonka ah. iyadana aad ayaa loo kordhiyay si ay markaasi ardaydu loogu taageero waxbarashada markaasi ay baranayaan. barnaamijkeena Sweden iyo maanta waxaan ku soo koobayaa 43,5 minusgrader var det i Kvikkjokk Årenjärka natten till onsdag. Det är den lägsta januaritemperaturen som Sverige haft på 25 år. sida aad daawateen muuqaalka dabcan 25 sano kadib Sweden oo markaasi qabowga gaaray markaasi -43.5 isla markaasina meelaha qaar ama magaalooyin qaar la sheegaya in ay korontadu markaasi ka dantay sidoo kalena gawaaridu way adag tahay inay wadooyin ku socdaan iyadoo ay jiraan dabeelo aad u xoogan. sidoo kale waxaa la sheegay in weekendigan lagu soo footolay ee sabtiga hadda laga yaabo in magaalooyinka qaar ay gaaro qabowga -19 ilaa 20 inta u dhaxayso. sidoo kalena laga yaabo in meelaha qaar ay ka tagto korontada sidaas awgeedna
in aad loogu taxadiro in ay waxyaabaha daruuriga ee guriga ay ku yaalaan sidoo kale haddii aad banaanka aadaysid inaad aad ugu taxadirto xagga gawaarida waxaa la sheegay inay markaasi jiri doonto sanbiraxasho ama halka badan maadaama ay wadooyinku baraf u yaalo isla markaasina adag tahay in ay gawaarida socdaan insha allah inta aan ku kulmayno barnaamijkiisa xiga ee Sweden iyo maanta waa walaalkiin cali sulba idin leh sidaa iyo nabadgelyo